maamulka Soomaalida Itoobiya iyo waliba jabhadda ONLF ayaa waxay heshiis ay ku kala saxiixdeen magaalada Jigjigo oo caasimad u ah xarunta maamulka Soomaalida. Wariyaheena Maryamo Xuseen Jibriil ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haysa. Maamulka Soomaalida Itoobiya iyo jabhadda ONLF ayaa waxay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada Jigjigo oo caasimad dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. ciidanka jabhadda ONLF iyo kuwa maamulkaasi ayaa la sheegay in la isku dhafayo lana mideynayo iyadoo askarta ONLF qayb ka noqon doonta ciidanka ammaanka iyo adeegyada rayidka ah ee dowladdaasi. Mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada dhinac oo ay qayb ka yihiin mas'uuliyiinta dowlad deegaanka iyo madaxda ONLF ayaa ka hadlay munaasabada lagu shaaciyay isku dhafka labada ciidan. marka hore waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan ee intanoo qof oo muwaadiniin oo walaalo oo ayuhu kala geeyay maanta isu keentay waa mahad Ilaahay aad baan ugu faraxsanahay oo mahadsantiin. sida la socotaan deegaankeena waxaa ragaadiyay colaado fara badan oo soo maray oo badankoodu asaaskooda ahayd xaq raadis iyo xuquuq raadis iyo horumar raadis taas oo shacabkan dhibaatooyinka faraha badnaa ay soo jireen inay kaga baxaan ay ku rabeen iyadoo taas ay ka dhasheen colaado fara badan barakac dil xansuuq iyo dhibaatooyin aan la soo koobi karin. waxaa Ilaahay mahadiya in maanta aan marayno marxalad taariikhi ah oo haddii aan ka faa'iideysano aan kaga gudbi karno dhibaatooyinka ayna soo maray waa cusub oo walaalnimo oo horumar oo nabadeed iyo wax la qaybsi qowmiyadaha kale iyo raadsi xuquuqaha naga maqan ay noo farayso in maanta Ilaahay uu sabab inoo dhigo inteena meesha fadhida waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waana marxalad taariikhi oo runtii u baahan in la xuso oo ahmiyadeeda iyo miisaanka ay leedahay kulligeen aan dareensanaano. isbeddelkii dhacay waxaa isla markiiba uu keenay in ay dawladda cusub ku dhawaaqday in aynan ururada gobonnimo doonka oo ururkayagii uu ka mid ahaa inaynan ahayn ururo argagixisa inay ururadaas yihiin ururo xaq u dirir ah oo gobonnimo doona. waxay ahayd tallaabadaasi albaab awal hore xidhnaa ayay ereygaas ama khudbadaasi yay furtay. markay dawladdu arrintaa ku dhawaaqday isla markiiba waxay raacisay inay maxaabiistii faraha badnayd shacbiga Soomaaliya ogaadeen ka tirsanaa in la sii daayo oo markiiba la sii daayo. labadaas tallaabo waxay u horseedeen in gobonnimo ama in wada hadalkii iyo gobonnimada tallaabooyinkii loo socotay ay meel maraan. labadaa tallaabo ama saddexdaa tallaabo markay dawladdii qaaday annagana golihii dhexe wuu fadhiistay. golihii dhexe markuu fadhiistayna wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin yuu ku dhawaaqay isaga oo runtii ka jawaabahaya tallaabooyinkii dawladdu ay qaaday yaanu annaguna ku dhawaaqnay mataqaanaa xabad joojin. isla markaana waxaanu go'aansanay inaan dalkayagii soo gallo. jabhadda ONLF oo la aasaasay sanadii 1984 waxay u dagaalami jirtay xorriyadda dhulka Soomaali galbeed ayaa la sheegay in ay wada xaajood la galeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed taas oo sababtay in madaxda iyo ciidanka jabhadda dib ugu soo laabtaan dalka Itoobiya.